Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Baydhabo kulamo kula qaadanayay siyaasiyiinta golaha malaaqyada, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan wadajir ah waxa uu la qaatay guddiga iska soo xuleen malaaqyada dhaqanka, guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta iyo cilmi-diinka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Kulanka waxaa looga dooday qiimeynta iyo in baaritaan lagu sameeyo dhacdooyinkii ka dhacay magaalada tan Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka dhashay arrimaha muranka doorashooyinka, iyo in markaa qiimeyn lagu sameeyo kadib xal loo helo, iyadoo sidoo kale la qiimeynayo caqabadaha kale ee hortaagan arrimaha midnimada iyo dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo guddiga warbixinta uu ka soo diyaariyo arrimaha loo xilsaaray uu la wadaagi doono golaha malaaqyada dhaqanka, guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Kulanka inta uu socday, gudoomiyaha iyo odayaasha dhaqanka iyo guddiga oo la kulmayba waxa uu ku ammaanay doorkooda ku aadan arrimaha dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, waxaana kula dardaarmay inay halkooda ka sii wadaan dadaalada ku aadan midnimada iyo horumarka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed oo odayaasha dhaqanka mar walba kaalin muhiim ah ay kaga jireen. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka shirka ka qayb galay ayaa gudoomiyaha Golaha Shacabka sidoo kale uga mahadceliyay doorkiisa nabadoonnimo ee ku aadan fidinta gogosha dib u heshiisiinta ee taala magaalada tan Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Ibraahim Gudle Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baydhabo.